فإنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أدونك مؤمنك مركو أدونك كبحيو أو آخر آدايو أو ساعدي أي أتماد نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس waxaa ku soo degaya malaa'igtaas oo aad
aad u nuuraysa wejiyadooduna ay nuurayaan oo aad moodayso wejigooda inuu qorax oo kale uu yahay ma'ahum kafanu min akfaani اljanna waxay sitaan kafan ay jannada ka soo qaadeen waxanuutun min xanuuti اljanna iyo catar ay jannada laga soo qaaday xataa yajlisuu minhu madda albasar ilaa ay ka fadhiistaan meel ishiisu arki karto wayajii'u malaku lmowt waxaa imanaya malakulmowtkii ayaa soo degaya markaasuu wuxuu fadhiisanayaa cinda ra'sihi madaxiisa korkiisa fayaquulu wuxuu odhanayaa addoonkaas mu'minka ah ama addoontaas mu'minadda ah ayatuha nafsu ayiba ayatuha nafsu ayiba nafti yahay ayibada ah ee wanaagsanayd ee udgoonayd ee daahirka ahayd naf yahay wanaagsan ukhrujii ilaa makfirati min allahi waridwaan u soo bax ilaahay caza wajalla makfiradiisa iyo dembi dhaafiisa iyo raallinimadiisa u soo bax qaala wuxuu yidhi fatakhruju fatasiilu kamaa tasiilu alqatratu min fi siqaa naftiisii ayaa tartiib uga soo baxaysa waxay u soo baxaysaa sida qarbadka biyaha laga shubo dhibicda biyaha ay uga da'do fudayd daraaddiis ayay naftiisa kaga soo baxaysaa faidaa akhadahaa hadduu qaato lam yadacuuha fii yadihi طarfata cayn gacantiisa kuma dhaafayaan malaa'igtii meesha fadhiday malakalmowtka uma daynayaan ilbiriqsi uma daynayaan xataa ya'khuduuha ilaa ay ka qaadaan fayajcaluuha oo ay ka yeelaan fii dalika alkafan kafantaas ayay ku ridayaan wa fii dalika alxanuud catarkii ay jannada ka keeneen ayay ku ridayaan wayakhruju minhu waxaa ka soo baxaya jasadkiisa iyo jirkiisa waxaa ka soo baxaya ka adyabi nafxati miskin riixada ama cadarka ama wax carafta ka soo baxda miskiga oo kaleeto ayaa ka soo baxaysa naftiisa fayascaduuna biha falaa yamuruuna way la baxayaan samaday la aadayaan falaa yamuruuna lama soo marayaan calaa mala'in min almalaa'ika malaa'ig meel fadhida ee malaa'igta ilaahay ah ma soo ag marayaan ilaa qaaluu ilaa malaa'igtaa waxay odhanaysaa maa haadihi aruuxu ayiba war naftan ayibada maxay tahay fayaquulaan waxay odhanayaan fulaan ibnu fulaan biaxsani asmaa'ih magacii hebel iyo hebel magacyadiisii ugu wanaagsanaa ayay ugu yeerayaan alatii kaana yusamaa biha fi dunyaa ee adduunyada loogu yeeri jiray xataa yantahuu biha ila samaa'i dunyaa ilaa ay la tagaan samada inoogu soo xigta toddobada samo tan adduunka dhulka ugu soo xigta fayastaftaxuuna lahu way dalbaan in loo furo albaabka fayuftaxu lahu waa loo furaa albaabka fayushayicuhu ahlu kulli samaa samo kasta waxaa ka sii dhoweeya oo ka sii sagootiya muqarabuuha ila asamaa'i alatii taliiha samo walba waxaa ka sii sagootiya malaa'igta muqarabiinta ayaa ka sii sagootiya ilaa samada kale xataa yantahi biha ilaa lagu dhammaado ila asamaa'i asaabica samada toddobaad ilaa lagu dhammaado fayaquulu allahu caza wajal ilaahay caza wajal alayaa wuxuu odhanayaa uktubuu kitaaba cabdii fii cilliyiin addoonkayga waxaad ku qortaan kitaabka la yidhaahdo cilliyiin ee ilaahay caza wajalla uu qur'aan kariimka inoogu sheegay kalaa ina kitaaba alabraari lafii cilliyiin wamaa adraaka maa cilliyuun كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يقول الله تبارك وتعالى فأعيدوه إلى الأرض في جسده فيأتيه ملكان مركي قبرق لغو سوعليو لما ملك أياه إيمانيا فيجلسانه ويفريسنيان فيقولان وحي أرنيان من ربك ربك يهي فيقول ربي الله إلهي وي ربي فيقولان ما دينك دين تادو محيتاي فيقول حورنيا دين الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ننك الذي صدري نبي عليه الصلاة والسلام ويه فيقول هو رسول الله رسولك إلهي ويه فيقولان ما يدريك
maxaa ku ogeysiiyey rasuulka ilaahay inuu yahay fayaquulu qara'tu kitaaba allah wa aamantu bihi wasadaqtuh halkaa waxaan ka garanaynaa walaalayaal haddaanu kitaabka ilaahay akhrin oo kitaabka ilaahay aanu jeclayn inaanu ku jawaabihayn jawaabtaas maalinta qiyaamo qabriga aanu odhanayn qara'tu kitaab allah kitaabka ilaahay hadduu ilaawo oo dhabarka ka tuuro oo qur'aanka aanu akhrin muxuu ku jawaabayaa muxuu odhanayaa diinta islaamka